Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal mar kale muuqaalkan kooban wuxuu daba socdaa muuqaalkii hore ee aan uga hadalnay sida loo galo imtixaanka qaadashada dhaqaatiirta diyaarinaya takhasuska ee isbitaalka tababarada iyo cilmi baarista ee Somali Turkish Exdigfer. Muuqaalkeena maanta 5 qodob ayaan ku soo koobi doonaa oo isugu soo aruurinayno su'aalo kala duwan oo daba socday imtixaankaas ay soo weydiiyeen dhaqaatiir fara badan oo Soomaaliyeed oo daneynayaan imtixaankan in ay isku dayaan si ay uga mid noqdaan dhaqaatiirta takhasus ku diyaarinayso isbitaalka Somali Turkish Research and Training Hospital. Haddaba waa maxay sababta aan u dhiirigelinayo dhaqaatiirta in ay imtixaankaas galaan si takhasus ay ugu diyaariyaan isbitaalka Somali Turkish? Runtii arrimo kala duwan ayaa igu kalifayso oo ugu horeyso marka koowaad qofka markii uu ku qaadanayo isbitaalka Somali Turkish uu ku yaalo magaalada Muqdisho takhasus markuu ku qaadanayo faa'iidooyin kala duwan ayay u leedahay dhakhtarka Soomaaliyeed ee ugu horeyso dhanka waxbarashada iyo tababarka. Isbitaalka runtii waxa ka jiro tababar aad u sareeyo oo standard ahaan caalami ah markii loo barbar dhigo qaababka takhasuska looga diyaariyo wadamada kala duwan ee adduunka. Faa'iidada labaad ee ugu muhiimsan waxay tahay qofka dhaqaale ayuu ku helayaa dhakhtarka intuu ka shaqeynayo isbitaalkaas lacag dakhli ah uu helayo bishii ayaa jiro si noloshiisa iyo reerihiisa ugu maareeyo. Qodobka saddexaadna waxa waaye oo faa'iidada ugu weyn ah dalkiisa hooyo ayuu joogaa waalidkiisa iyo reerihiisa iyo ehelkiisa ayuu u dhow yahay. Faa'iidada kale muhiimka marka waxay tahay qofka aqoontiisana uu tijaabiyay wuxuu isku arkayaa inuu yahay dhakhtar ku gudbay imtixaan caalami ah aqoontiisa ku soo baxay kadibna wuxuu bartay kadib uu imtixaan u galay si kalsooni leh oo farxadna ay ku dheehantahay u shaqeynaya. Arrinta kale oo muhiimka ah oo mudan in laga dhawaajiyo waxay tahay cadaaladda ka jirto halkaas aad ay u wanaagsan tahay kadib markii imtixaanadii kala duwan ay la galay iyo sidii loo saxay iyo imtixaanada qaababkay ahaayeen aad iyo aad wax loogu qancay ahayd. Arrinta labaad ee muhiimka aan ka hadlayno waxay tahay shuruudaha isdiiwaangelinta. Waa muhiim in aad akhrisid sharciga imtixaanka ay soo dejiyeen isbitaalka isla markaasna ay soo bandhigeen. Sharcigaas waa heli kartaa website-yada la iskugu dirayay website-ka isbitaalka haddii aad booqatidna waa ka helaysaa. Waa muhiim in aad akhrisid dhammaan shuruudaha qaadashada dhakhtarka si uu imtixaankaas uga mid noqdo dhaqaatiirta u soo tartamayso. Marka iska fiiri qodobo muhiim ah ku jiraan hal mar isku day inaad wada akhrisid ilaa 10 page oo kale ka kooban yahay qormada. Arrinta saddexaad ee rabna inaan ka hadalno waxay tahay diyaarinta iyo qaabka aad akhrinaysid. Waa ognahay waqti aad u yar haysataa imtixaanka markii la iclaamiyay iyo maalinta la gali doono waqti fiican oo wax badan aad ku akhrin kartid ma haysatid. Haddaba sidii muuqaalkii hore aan ku sheegnay buugga loo yaqaan USMLE First Aid-ka Step 1 ha moogaanin buuggaas waa dahabi adigoon akhrinin imtixaankan way adkaanaysaa sida aad wax badan uga keentid. Maadaama waqtigu uu aad u kooban yahay laba fikrad aan kugu kordhiyo oo buuggaas si degdeg ah ugu dhameyn kartid. Hadda tusaale halkan waxaan ku haysanaa buugga First Aid USMLE Step 1 ana halkan waxa ku haystaa 2020ka marka adiga hadii ay heli kartid 2020ka ama editionada ka horeeyeen waxa uu macno sameeynayso mar walba adiga buugana muhiim ah 2017 2017 iyo wixii ka dambeeyay ah. haddii aad isla fiirino bugan oo kale buuga qaybtiisa contentiga marka imaadid contentiska 25 page ee ugu horeyso waa iska qaabka u akhrin lahayd haddii aad rabtid inaad gashid examka USMLE ee Mareykanka loo galo qaabka u diyaarin lahayd study guide-ka iyo waxaas wax la mid ah ilaa 25 page arrimahaas ayay ku dhamaanaysaa. Section-kan ee supplement-ka ah ilaa page 27 ku dhamaana laakiin ka bilow section-ka labaad oo high yield general principles meesha ku qoran tahay yani 30 page 30 oo ka bilaabana page 30 bogga 30aad iyo 31aad iyo 32aad waa sida aad u isticmaalan lahayd database-kan ama buugan iyo akhrintii iyo wax la mid ah. Balse bogga 33aad biochemistry ayaa kaaga bilaabanayo. Bogga 33aad ilaa 255 oo public health ah waa intaas ka soo marka qaybta section-ka ku xigo waa organ system yani qaab oo systemic ah iyada dhan marka waxay noqonaysaa ilaa 689 waayahay 689 kan haddii aan ka jarno 33 bog oo horay yani waxyaabo buuga iyo introduction-kiisa waxyaabo maala yani ee nooga dhamaatay halkaas waxa nooga soo harayo 656 bog 656 bog marka ku haysatid qaabkii aniga imtixaankan aan u diyaariyay haddii aan kula wadaago yani laba chapter oo waxa jirta aanan fiirinba oo aan ka tagay. labadaas chapter waxay kala ahaayeen chapterka la yiraahdo public health iyo chapterka psychiatric. haddii marka aad tusaale ku siiyo chapterka koowaad oo public health ko kale wuxuu noqonayaa 21 bog chapterkan oo psychiatric wuxuu noqonayaa 24 bog. haddii marka aad ka jirtid 21 iyo 24 markii aad ka jirtid 656 bog waxa ku soo harayo oo kaliya 611 bog ayaa ku soo harayso macnaha markay 611 bog markay ku soo harto haddii aad u qaybisid waqtiga maalmaha kaaga dhimanayso imtixaanka tusaale 2 usbuuc haddii kaaga dhiman tahay waxay noqon kartaa 40 bog maalintii inaad akhrisid
يعني maalintii 24 saac haysataa 40 bog wax yar waay marka sababtan kugu fududeyna waxa way buugga inaad si fudud u dhameysid ayaa arki doontaa markii aad buuggan hal mar dhameysidna imtixaanka maalintiisa adiga dhiiranaan fara badan adoo isku qabo ayaa tagi doontaa dhiiranaantaas faraha badanna waxay ka caawin doontaa imtixaanka inaad ku raaxaysatid labadaas jabtar ee aan ka tagnay oo aniga yani sida shakhsi ah ugu tagay haddii adiga aad akhrisid waxay ku noqonaysaa oo kaliya 43 bog maalintii inta ka dhiman imtixaanka oo hadda 2 isbuuc ah marka taas macnaheedu waxa waaye 2 isbuuc haddii aad rabtid buuggaas inaad ku akhrisid waxay noqonaysaa maalintii 43 bog oo kaliya inaad akhrisid fikradda labaad ee aan kugu kordhinayo waxa waaye oo ka caawin karto buuggan inaad si degdeg u dhameysid warqad inaad soo qaadatid oo ku qortid jabtarada magacyadooda jabtar walba magaciisa iyo inta bog uu ka kooban yahay kadibna qaybta basic science oo kale inta bog ay ka kooban tahay total inaad u samaysatid oo hoos numberkeeda aad ku qortid taas waxay ka caawinaysaa jabtar walba inta bog uu ka kooban yahay iyo adigoo og maalintii intee bog ayaa laga rabaa inaad akhrisid hadda qormadan iyo jabtaradan meeshii ugu qoran ma ahan buugga first aid ma ahan waa qormo kale buug kale oo aniga akhrinayo waaye oo saan hadda kor u qoray tusaale ahaan kaliyan ka wada waxa kale oo sameyn kartaa adigoonan warqad ku qorin buugga markaas aad ka akhrinaysid first aid-ka jabtarada hortooda nambarada ku qoran yani inaad tirisid kadibna aad hoos totalka ugu qortid taas waxay ka caawin kartaa jabtar walba inta number uu ka kooban yahay marka si aad u soo saartid jabtarkan inta bog uu ka kooban yahay waxa sameynaysaa jabtar hoose ayaa waxa ka jaraysa jabtarka kore inta number uu yahay tusaale halkan psychiatric 553 oo laga jaray neurology and special sciences 489 markii ay kala jirtid numberka halkaas ayuu kaaga soo baxaya inta bog uu ka kooban yahay jabtarkaas arinta afraad ee aan ka hadlayno waxa way maalinta examka ama maalinta imtixaanka markaad timaadid adigoo og dhammaan shuruudaha la iska rabo imtixaanka wuxuu ka kooban yahay 100 su'aal 100kaas su'aalood waxay ka kooban yihiin content oo basic science iyo content su'aal oo clinical medicine ah marka 100 su'aal ay isku noqonayaan waqtiga ay haysatid marka 100kaas su'aal waxa haysataa 120 daqiiqo taas oo macnaheedu ay tahay su'aashii waxa haysataa 1 daqiiqo iyo 20 second hadaba sida ugu badan dhaqaatiirta imtixaankan galaan ma u dhacaan aqoon darri balse waxay u dhacaan waqtigaas oo lagu cadaadiyay darteed maadaama aadan marka waqti badan haysanin marka ugu horeysa ay imtixaanka imaadid isku day inaad iska fiirisid instructionka ama qaabka imtixaanka kor maxaa kugu qoran maxaa lagaaga baahan yahay instructionka markii aad akhrisid horay ka bilow su'aalaha inaad ka shaqeysid waxa haysataa marka warqado ay ku qoran yihiin su'aalaha iyo warqad laga rabo inaad kaga jawaabtid oo answer sheet ah marka warqadaha ay ku qoran yihiin su'aalaha waxa laga yaabaa ilaa 5 warqad 6 warqad inay gaaraan 7 warqad xataa way gaari karaan mararka qaar 9 warqad balse warqada oo jawaabaha aad kaga shaqeynaysid waa hal warqad halkaas warqadna waxa ku qoran 1 2 3 oo su'aalaha numberkooda ah iyo meeshii aad dooran lahayd imtixaankan kaliya wuxuu ka kooban yahay MCQs ma ahan true and false ku jiro direct question ku jiro sida hore ay oogeen marka warqadaha questionska ay kugu qoran yihiin marka fiirisid waxa lagaga baahan yahay warqadaas ay su'aasha ay ku qoran tahay in su'aasha numberkeeda iyo A ma la dooranaa B ma la dooranaa C ma la dooranaa D mise E oo warqada answer sheetka inaad ku qortid qaabka marka loo dooranayo ma ahan qaababka sida badan jaamacadaha ku naqaanay oo su'aasha circle aad gelinaysid A oo kale B oo kale circle aad gelinaysid ma ahan tan waxay ugu duwan tahay warqada oo jawaabaha aad kaga shaqeynaysid waxa lagu siinayaa numberka su'aasha marka lagu siiyo meeshii la dooran lahaa oo A B C D meeshii la dooran lahaa horteeda waxa lagu baneeyay meel koobin ah oo eber ah oo cadaan ah B koobin C koobin D koobin saas oo kale marka adiga jawaabta saxda ah waxa lagaga baahan yahay in meesha oo koobinta lagu siiyay aad madoobaysid imtixaanka waxaana la ogolaan inaad kaga shaqeysid qalin biire saadaradeeda qolada isbitaalka waxay ku diyaarin doonaan qalin qori iyo tirtire iyo waliba qalinka hadii uu ka dhamaado kii aad ku qori lahayd intaba way kugu diyaarsan yihiin meesha balse adiga ha isku haleynin haday suuragal ku tahay soo qaado qalin qorigaaga jeebka ku soo qaado meeshaas koobinta ah marka waa madoobeynay maxaa yeelay sida badan imtixaanka machine six doono meeshaas aan madoobeysay marka si fiican yani u madoobay macnaheedu ma ahan qalinka ka dhaxbixinin warqada kulli waa isla fahmayna taas laakiin meesha madoobay si loo fahmi karo in aad dooratay su'aashan hadii aad qaladidna si fiican u tirtir kadibna su'aasha aad isleedahay jawaabta way saxan tahay taas dib u madoobay tala ahaan marka waxaan ku siin lahaa imtixaanka marka ka shaqeynaysid su'aalaha u kala qaad 3 qaybood su'aal 100% ah hubtid oo jawaabteeda ku kalsoon tahay horay ka geli su'aal ah hubtid in ka badan 50% oo shaki yar kaaga jiro ka jawaab idana horay uga jawaab su'aasha saddexaad waxa way su'aal in ka yar 50% ah hubtid oo yani shaki badan oo kaaga jiro idana ka jawaab aniga macnaha fikirka aan ku siinaa waxa way su'aasha hadii bar 50% iyo ka badan ah hubtid inaad ka jawaabi kartid ama aad taqaanid ka jawaab laakiin
su-aashii aa aragtid inaadan waxba ka aqoonin waxaan kugula talinaa inaad faraha ka qaadid. tusaale waxaa lagu weydiiyey Cadnaan wuxuu degan yahay Hargeysa, Cadnaan wuxuu degan yahay Muqdisho, Cadnaan wuxuu degan yahay Kismaayo. adigana Cadnaan oo dhan waxba ma ka taqaanidba. tusaalaan ula jeedaay isaga tag su-aashii aadan waxba ka fahamsanin isaga tag. sababta aan ku leeyahay arrintan waxay tahay waxaa jiro arrin dhaqaatiir fara badan ay ku kadsoomeen oo ah haddii 4 su'aal aa qaladid waxaa kaa go'i doono hal su'aal oo horey u soo saxday, taas oo macnaheedu tahay 25%. marka su'aalaha u kala qaad, su'aal 100% aa hubtid ku carar, su'aal 50% ka badan aa hubtid ka shaqeey, su'aal 50% iyo meel u dhow aa hubtid ka shaqeey. su'aashii aadan waxba concept ka haysanin isaga tag. dhaqaatiir badan ayaa waxay ku faa'iideen in badan aynan aqoonin ay ka tageen ayay bass mark fiican ku gudbeen kadibna ay isbitaalka uga shaqo bilaabeen. haddaba imtixaanka maadaama uu ka kooban yahay content oo basic ah iyo content clinical ah, adiga dhakhtarka ah clinical questionska waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid ah inay kuu fududaato, maxaa yeelay ama mar dhow ayaa internship ku soo aragtay clinical badan ama adigaaba ku shaqeeyo isbitaal joogo, balse meelaha ugu badan ee dhibaatada ka timaado waa basiga. marka waxaan kugula talinayaa xilliga diyaarinta aad samaynaysid jabtaro qaas ah si gaar ah isaga laalaabo, maxaa yeelay aadaa loo iloobaa. imtixaankana caan uu ku yahay oo su'aalihiisu way ku badan yihiin qaybta basiga qaas ahaan. waa jabtarka microbiology-ga ee buugan ku jiro USMLE first aid step 1ka iyo biochemistry iyo immunology iyo weliba pharmacology. afartaas jabtar concepts badan oo ilowsho badan ah ku jiraan oo haddii aad fahamtid xataa aad dib u iloobaysid. buugan wuxuu u diyaarsan yahay qaab oo short form ah oo wax dhan ay concepts ku qoran yihiin. marka haddii hal mar aad akhrisid xataa mar labaad waan kugula tali lahaa maalmaha ugu dambeeya inaad ku laabatid. xilliga diyaarintaada haddii aad xilli hore dhammayn kartid 2 usbuuc ka hor buugaas aad ku dhammayn kartid ku dhammeey, waxay kaa caawinaysaa inaad fursad u heshid inaad mar labaad ku laabatid macluumaadkii. buugana wuxuu ku fiican yahay qaybta ugu dambayso waxaa ku jiro jabtar la yiraahdo rapid review oo aad iyo aad u fiican conceptiga dhanna soo koobayo. marka haddii aad ciyow dhammayn kartid buuga kadibna rapid review-ga aad fiirin kartid kadibna jabtaradan oo aad ku recommend gareey mar labaad iyo mar saddexaad aad sii fiirin kartid, yani waxay kaa dhigi doontaa mid aad iyo aad uga faa'iido taladaas insha Allah. ugu dambeyntii adiga waxaa kuu bannaan keliya inaad isku day samaysid. waafajinta Allah subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh, balse mar walba ogsoonow qofka isku dayga badan waa qofka guusha badan. try is better than not to try. fursadana ha dhayalsanin, isku day, waa intaasuu alla ku waafajiyaa, waxba ha ka baqin. dadka wararkooda oo dhinacyadaada kaaga imaanaya iska ilow, dadka negative ay u badan yihiin, balse adiga waxaa lagaaga baahan yahay in aan positive ahaatid oo horey u socotid. cid ku istaajin kartana inaysan jirin ayaa lagaaga baahan yahay. haddii aadan shaqo ku jirin oo aad tahay dhakhtar aanan shaqo haynin oo guriga u badan baryahan, mobilka iska dami, social media iska ilow, adiga iyo qolkaaga iyo buugaaga focus noqo maalmaha yarta ah ee ka harsan imtixaanka. haddii aad tahay dhakhtar shaqaynayane fursad kale ayaa haysataa. haddii aad shaqaysid 8 saacadood 24 hours aad haysataa, 8 saacadood haddii aad ka jirtid maxaa kuu soo haray? dabcan waa dareemi kartaa waqtiga kuu soo haray. waxa kaliya lagaaga baahan yahay waxa waa adiga inay kaa go'an tahay, inaad isku kalsoon tahay. haddaba markaa akhrinaysid buuga nafsadaada uga sheekay inaad tahay qof guuleysanayo, u akhri inaad tahay qof guuleysanayo, aysan jirin wax ku celin karaayo. sida loo maleynayo ma ahan imtixaanka, waa wax aad iyo aad u fudud. haddii aad ku baasidne naftaada ayaa mahadin doontaa. haddii aydan kuu suuragelinne u sheeg nafsadaada inay khayr ku tahay, maxaa yeelay Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu aayadiisa quraanka noogu sheegayaa wacasaa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wacasaa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuun. waxaa jira shay aad dhibsanaysaan ama aad karaahiyeynaysaan, nacbaysanaysaan, balse khayr idinkugu jiro. haddana waxaa jira shay aad jeclaysanaysaan oo aad rabtiin balse shar idinkugu jirto oo aanan idin wanaagsanayn. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa og, balse idinka ma ogidin. go'aanka qaado, alla tala saaro, waa guulaysanaysaa. intaas ayaan kusoo koobayaa muuqaalkaygan maanta. waxaan idin rajaynayaa guul iyo barwaaqo adduun iyo aakhiro insha Allah. wasalaamu calaykum.